السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacay waa Baasha Abdulqaadir Muuse, channelka daawanaysaana waa Baasha FX. Guys, waxa weeye waxa kan yaado waa idinka iga suwayay inaan fiidiyoyaal badan ka soo hadlo. Channelka horta haddaa ku cusub tahay insha Allah subscribe saar, waxaan rajeynayaa inaan soo geliyo fiidiyoyaal fara badan oo aan kaga hadlayo waxa weeye forex iyo magaranaysaa istiraatiijiyada ugu habboon oo aad kaga shaqaysan kartid. waxaan rabaa inaan kaga dhigo taxane insha Allah istiraatiijiyada aan isticmaalo iyo waxyaalaha ay ka kooban tahay. sidoo kale waxa kan yaado intriyada sida aan u qaato iyo meelaha waxa weeye aan ka raadsado. caawa waxaan rabaa inaan waxa weeye halkan ku sharxo reversal pattern-ka sida aan waxa weeye intri uga raadsado. waxaan rabaa inaan waxa weeye video ka soo sameeyo insha Allah reversal pattern-ka ama reversalka meelaha reversalka ah iyo saan intri uga qaato. insha Allah sidoo kale continuation pattern-ka sida aan u galo oo trade garayo. continuation pattern-ka badanaa Falcon oo kale waxa weeye siba u trade garaya, laakiin anigu continuation pattern-ka waxa weeye qaabka aan u galayo intri meelaha ka raadsado way ka duwan yihiin. insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo caawa waxa weeye anoo price action iyo market structure isku darayo insha Allah sida aan waxa weeye reversal pattern-ka intri uga raadsado ama area reversalka sida aan intri uga raadsado. insha Allah waxaan ku bilaabayaa euro USD oo kale. markii lacag aan soo analyze gareeyo oo aan rabo inaan waxa weeye entry ka qaato meelaha entry aan ka helo iyo sidoo kale waxa weeye entry koobaad iyo entry labaad ilaa entry saddex meelaha ka qaato. waxaan ku bilaabayaa lacagta euro USD oo kale. euro USD area-dan oo kale haddii aan soo analyze gareeyo sidoo kale halkaan oo kale haddii aad soo analyze gareysid oo tiraahdo intaan suuq halkaan oo kale waxay ahayd meel reversal pattern. insha Allah waxaan isku dayayaa inaan soo koobo reversalka sida aan u trade gareeyo. sida oo kale waxa weeye reversalka entry meesha aan ka galo marka mar rabo inaan waxa weeye sharaxaad badan in siiyo. waxaan rabaa hal mar intuu soo taabsi si caadi ah inaan kugu sharxo insha Allah. reversal patterns-ka sideedaba marka anigu aan galayo sell iyo buy-ga markaan suuqa u qaadanayo haddii aan wax yar waxa weeye halkaan aan inuu kuso badanaa waxa weeye reversal pattern-ka waxaan ku qaataa waxa kaliya ado reversal pattern-ka waxaan ku qaataa ama reversalka area reversalka waxaan ku galaa suuqu markuu meel ii yimaado waan soo analyze gareystaa. waxaan ku soo analyze gareeyaa market structure market structure markaan ku soo analyze gareeyo entry-ga badanaa waxaan sameeyaa price action ma isticmaalaa. waxaan sameeyaa oo kale halkaan markii suuq waxa weeye sell uu isiiyo oo kale area-dan oo kale waxa weeye suuqu arkay inuu meeshaas yimid waxaan fiiriyaa pattern-ka lagu yimid. haddii 3 touch meesha aan ka helo 1 iyo 2 iyo 3 aan ka helo waxaan fiiriyaa last move-kii u dambeeyay qaabku ahaa. hadduu aggressive ahaa oo imbalance xoog u ahaa waa sugaa ilaa inta suuqu uu sameysanayo imbalance, kadib imbalance markuu sameeyo ilaa uu trend line-kaas kale ka jibinayo kadib soo laabashada retestigaas baan waxa weeye ka qaataa. ama waxaan sameeyaa haddii suuqu meel uu qaab aan structure ahayn oo kale igu yimaado qaab iska waxa weeye iska soconayo oo kale saan oo kale ay igu yimaado waxaan fiiriyaa suuqu inuu soo jabiyo last higher-kii u dambeeyay last lower higher-kii u dambeeyay oo kale in la cuno kadib suuqu uu buy-sa ku aado kadib waxaan sugaa halkaan kama qaatay waxaan sugaa ilaa inta retest la igu sameeyo. hadduu suuqu ahaa weeye ascending hadduu ahaa waa hadduu ascending ahaa waxaan sugaa suuqu ilaa inta uu jibinayo last lower higher-kii u dambeeyay kadib waxaan sugaa pullback aan sugaa ama retestiga. halka haddii waxa weeye retest aan ka helo candle rejection waxa weeye waa ka qaataa. labadaa waa iga haysaa ma filayaa. tan waxay kala duwan yihiin haddaan mar labaad in kugu soo celiyo badanaa anigu waxyaalaha adeegsado suuqa waxaan sugaa meel haddii laygu yimaado structure oo kale kaba soo qaad oo laygu yimaado 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 ga haddii laygu yimaado waxaan fiiriyaa suuq waxa weeye lower higher-kii iyo higher higher-kii haddii suuq buy yahay hadduu suuq sell yahay. hadda suuqan waa sell waxaan sugayaa ilaa inta lowgan last lower-kii u dambeeyay laga soo jibinayo. markii la soo jibiyo oo dib area-dii la jibiyo loo soo jibiyo kadibna waxa weeye suuqu uu sameeyo retest halkaas aan ka qaataa. haddii kale mararka qaarkood waxa dhacda intuu suuqu si xoog u jibiyo in waxa weeye last higher lower-kii u dambeeyay retest lagu sameeyo saar retest lagu sameeyo kadibna waxa weeye saa buy lagu aado. mararka qaarkood waxa dhacda in suuq waxa weeye meel inta lagu jibiyo saan oo kale sidaan oo kale intuu 3 touch ku sameeyo oo kale waxa isdhaaysaa suuqu 3 touch buu ku sameeyay wuu ku jibinayaa meeshii
kadib retest baa helaysaa waxaas leedahay waa buy suuqi laakiin buy ma noqonayo sababtu waxa weeye meeshana waxa laga yaabaa in lagu jabiyey qaab corrective ah qaabka corrective marka loo jabiyey aduu pullback baa sugaysaa laakiin waa corrective waxay kugu noqonayaan flag bay kugu noqonayaan kadibna waxa weeye suuqu wuu sii daadanayaa marka haddii waxa weeye meel aniga badanaa baatanada aan ka qaraabtana waxa ugu badan oo aan ka qaraabtay waxa weeye suuqu markuu saan oo kale meel area igu tago inuu area igu tago qaab ascending oo kale ama qaab raising wedge oo kale inuu igu tago kadib badanaa waxa weeye risk entry-ga kama soo qaato badanaa mararka qaar haddii 3 touch qurux badan 1 iyo 2 iyo 3 aan helo waa ka soo qaataa laakiin haddii 1 iyo 2 iyo 3 aan qurux badan aan helo waxaan sugaa ilaa inta suuqu soo jibinayo area kadib waxa weeye testigaas aan ka qaataa suuqu iska daadan mayo waa khasar test buu sameeyaa area markuu test ku sameeyo waa soo qaataa ilaa waxa weeye TB1 kayga intaas aan ka dhigtaa ilaa low u dambeeyana waxa weeye suuqa la sii socdaa marka qaarkood laakiin waxa dhici karta suuqu in meel uu ku yimaado si aggressive saan oo kale intuu meel ku yimaado in madaxa saa looga baxo qaab aan qurux badnayn oo kale suuqu waxa weeye area ugu laabto markaas oo kale maxaan sugaa waxaan waa ranging markaas oo kale waxaan sugaa suuqa siinayo wax caadi ah aan ku tiran gareyn karo maadaama trend line aan halka u jeedo in soo jabiyay laakiin wali suuqu waxa weeye corrective ku jiro waxaan sugayaa ilaa inta area-daas kale la isoo jibinaya sugaa waxaas waxaan ku tusi doonaa insha Allah jartigaan ku tusaya insha Allah ilaahayna waana sida aan reversal pattern ka waxa weeye u trend gareeyo reversal ka saan u trend gareeyo reversal pattern isku laakiin way tira badan yihiin hadda suuqaan oo kale markaa fiirisid halkan wuxuu ka soo samaystay trend line baa la jibiyay halkan hadaa si fiican waxa weeye u fiirisid trend line baa la jibiyay laakiin waa sida hadda inii sheegayo trend line marka la jibiyo waxa weeye waxa la fiiriyaa qaabka lagu jibiyay hadda qaab corrective oo flag lagu jibiyay last high u dambeeyay suuqa waa ka last high halkan weeye laakiin suuqu already waxaan oo dhan waxay noqonayaan suuqan move bay noqonayaan kadib suuqu inuu soo laabtay uu sameeyay waxa weeye flag marka meeshaan oo kale marka ka trade gareynaysid oo aad aragtay suuq waxa weeye inuu sameeyay 1 iyo 2 iyo 3 qurux badan marka aragtay inuu sameeyay maxaa sugaysaa 1 iyo 2 iyo 3 ga haddaan ka shaksanahay maadaama hadda tan oo kale waa ka shaksanahay suuq waxa laga yaabaa inuu halkaan oo kale gaaro in uu meeshaan oo kale kugu gaaro tan oo kale maxaa sameeyaa umar tan oo kale waxa weeye ma galo laakiin xagee baan ka galaa tan oo kale waxaan ka galaa suuq waa inaan la isgareysan yahay waxa ogaada trend line in la jibiyay laakiin aan lagu jibiyay qaab corrective marka maxaan sugaa markaas oo kale waxaan sugaa ilaa inta la jibinayo lower higher hadduu suuq waxa weeye uu buy ku socday oo waa maxay meeshaan hadda u jeedaan waxa weeye waa qaab aggressive weeye waxa weeye qaab aggressive awood badan baa meesha lagu tagay waana 1 iyo 2 iyo 3 marka maxaan sugaa badanaa anigu waxaan sameeyaa waxaan calaamadsadaa lower higher key iyo higher higher key haddii si qurux badan aad u fiirisid suuq fiiri muxuu sameeyay saa markuu u soo jibiyay area-da uu ku laabtay impulse yar buu soo sameeyay correction buu sameeyay laakiin wali shaki waa kugu jira in suuqu halka uu kugu laaban karo markaas oo kale anu maxaan sameeyaa boxkaasaan adeegsadaa markii saa la igu soo jibiyo testigaasaan ka qaataa hadda waxaan joogaa 4 hour 1 hour ku kala daadagtay waxa weeye clear baa arkaysaa suuq markii saa loo soo jibiyo testigaasaa laga qaataa testiga ugu horeeya markaa ka qaadatid waxa weeye short position-kaaga lasoo dhigtaa short position-kaaga TB-gaaga koowaad waxaa laga dhigtaa TB-gaaga koowaad waa laska soo yaraystaa laskuma badiyo waxa weeye ilaa lowgaas oo kale laga dhigtaa suuq waxa rabtaa inaad suuq maxaa yeelay mar walba wuxuu sameynayaa test buu sameynayaa suuq waa laabanayaa maanta oo dhan marka intaas oo kale markaa ka cuntid aragtay suuq waxa weeye impulse xoog leh inuu sameeyay waxa weeye haddana waxa ka raadsanaysaa chance labaad waliba badanaa anigu waxaan sameeyaa 2 chance markaan ka raadsado chance-ka saddexaad waa large flag waxaan sugaa suuq markuu impulse isoo sameeyo waxa weeye chance-ka koowaad ka faa'iideysadaa chance-ka labaadna testiga waa ka faa'iideystaa chance-ka testiga markaan ka faa'iideysto chance-ka saddexaad wuxuu noqdaa large flag marka labada chance ugu horeeya suuq hadda ka faa'iideystay chance-ka saddexaad oo kale khasbi waa maxay chance-ka koowaad markaan ka soo faa'iideysto oo kale kan oo kale hadda waan ka faa'iideystay kale maxaan ka qabtay kan oo kale midna waxaan ka qabtay 23 beep haddana waxaan sugayaa testiga waxay ka sugayaa testiga waxaan ka sugayaa meeshaan area-da waa maxay area-da hadda si qurux badan u fiirsid oo kale wad arki kartaa taa waa ka soo taasoo kale waa iska dhaliidayaa waa maxay suuq muxuu ii sameynayaa suuq area adag buu ii soo jimiyay mar kale waa igu laabtay halkan waxay ahayd meel adag resistance ah
mar labaad ba waxa weeye resistant baa waa la jibiyey markii dambe waa lagu soo laabtay waa la jibin waayey markii saddexaad ba waxa weeye la jibiyey marka meelahaas oo kale waxa weeye meelahan ka qaraabto weer tastiga markaan helo waxaan fiiriyaa candle rejection tastiga laftiisa waxa weeye tastigu hadduu sometimes waxa dhaca intuu dheeraado oo kale meelahaas kale intuu tago in area halka suuq waxa weeye reversal uu ka samaysto here shoulder ku samaysto istiraahid meeshan waxa weeye suuq wuxuu ku sameeyaa reversal laakiin intuu halkan test ku sameeyo bay usaa ku aado marka badanaa waxa la fiiriyaa tastigaas oo kale inuu noqdo tasti waxa weeye qaab flag ku imaanaya meesha saan oo kale ku imaanaya kadib waxa weeye markaas oo kale waa laga faa'iideystaa marka haddana chance kale aad markan ka faa'iideystid oo kale oo halka aad soo gashid haddana waxa weeye waxa cuntay 110 bib halkaas oo kale marka sheekadu maraysa kadib waxa la sugaa waxa weeye chance ka saddexaad lagu degdego chance ka saddexaad large flag oo kale uu noqdaa badanaa oo xageer tas lagu sameeyaa meeshan area la soo jibiyo oo area adag tas baa lagu sameeyaa mar kale lagu laabanaya kadib waxa weeye markaas haddana ka soo faa'iideysanaysaa si qurux badan u soo faa'iideysanaysaa waxaanu tusayaa chance kale aynu tusayaa iyadana oo waxa weeye oo buy ah badanaa waxa weeye buy kuma diido oo sabab aan ugu diidin buy waxaan ka wadaa buyga fursadda koowaad oo kale kuma diido haddii hadda halkan oo kale aad aragtid suuq waxa weeye wuxuu sameeyay 1 iyo 2 hadduu suuqu sameyn lahaa halkan 1 iyo 2 iyo 3 oo meeshan suuqu imaan lahaa halkan waxa weeye risk entry waa ka qaadan lahaa taasi qurux badan hadda kugu sawiraan kugu soo celiyo si qurux badan hadda u sawiro waxa weeye halka waxa ka heshay 1 iyo 2 baa ka heshay soo ma 1 iyo 2 ga markaa heshay kadib waxaad aragtay suuqan in 1 iyo 2 iyo 3 ga loo socdo laakiin 3 la gaari waayay marka halka hadda ka qaadatid oo kale waxa weeye waa xogaa wali baqdin baa qabta in lagu tago halkaas oo kale marka waa possibility iyo probability lagu sheegayo waa intaas oo kale ina labada dhanba u fikirid haddii dhanka waxa weeye suuq uu buy saa ku aadayo see gormaan buy u qaadanaya buy waxa uu qaadanaysaa suuqu halkan double bottom kan buu ka laabanaya laakiin adigu ma ogid inuu ka laabanayo marka maxaa sameynaysaa waxa sameynaysaa trailinka soo qaadanaysaa waxa fiirinaysaa pattern in la jibinayo oo kale hadda waa maxay halkan pattern baa la jibiyay pattern qurux badan oo waxa weeye descending la jibiyay descending marka la jibiyay asasan ku qaadanayaa may sidoo kale waa in la jibiyaa meel lower higher maadaama suuqa waxa weeye uu yahay buy uu yahay oo jeedaan mid kale boxka soo qaadanaysaa waxa saaranaysaa area la jibiyay oo waxa weeye area adag ee la jibiyay maxaa yeelay suuq meeshan uu ku laalaabtay suuq meeshan uu ku laalaabtay sell risk baa hayay sell risk waa laga awood batay inaan shoulder baa dhacay kor baa loo jibiyay waa lagu soo laabtay waxa weeye si qurux badan baa kadib waxa weeye buy looga aaday marka anigu maxaan sameeyaa badanaa waxaan sameeyaa labada chance ugu horeysan ka faa'iideystaa labada chance ugu horeeya waa shuwa hadduu suuq reversal yahay waa ka qaadanaysaa waa maxay halkan suuq marka aragtay inuu pattern jabay oo descending baa jabay reversal pattern adigu waxa ka baqaysaa halkan waxa weeye in lagu tago laakiin si aad u baqin maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay meeshan in la jibiyo si qurux badan loo jibiyo area aad is leedahay waxa weeye suuq waa kala laabanaya in la jibiyo kor baa loo jibiyay xaas asha tastiba haddana heshay tastiga markaa heshay waxa weeye chance ka buyga waa ka faa'iideystay anigu badanaa waxa weeye saasaan uga faa'iideystaa chance-yada waxaan sugaa suuqa hadduu uu macnaha baqdin yahay oo kale oo suuqa dee aad ka baqaysid inuu meel kugu tago oo kale waxaa la fiiriyaa suuqu in uu waxa weeye jawgii bedeshay oo kale oo hadda ascending suuqu descending buu sameeyay descending waa jibiyay sidoo kale ha jibiyo ma xuma laakiin waa inuu ii jibiyaa sidoo kale area adag waa inuu ii jibiyaa sidoo kale area adag oo area adagtu ii jibiyo waa maxay meel wuxuu ii jibiyay suuqu ku laalaabtay 4 hour-na waa joogaa 1 hour-kuna waa tabtoo kale kadib taariikhkii koowaad waxaan ka dhiganayaa impulse-gaas oo kale waxa weeye meel uu ka soo laaban karo suuqu waa maxay tan kale waxaan ka dhiganayaa badanaa anigu waxaan sameeyaa haddii suuq waxa weeye uu lacagu isku mid maaha lacagu hadday momentum yihiin oo kale golliga oo kale dee 100 bil 200 bil baa ka dhiganaysaa hadda lacagtan oo kale impulse koowaad baa soo cabiranaysaa impulse ka horreeyay waxa weeye soo cabiranaysaa impulse ka horreeyay markaa soo cabiratid kadib impulse-ga labaad waxa weeye saas u saaranaysaa suuqa u jeedaan bartiba ka soo laabtay halka markuu ka soo laabtay oo chance-ka koowaad ka cuntay kadib maxaa la sugaa haddana waxa la sugaa test suuq wuxuu maanta wuxuu sameeyaa test uu sameeyaa haddana test baa sugaysaa marka chance-ka koowaad oo ka soo faa'iideystay chance-ka labaad baa haddana ka fiirsanaya chance-ka labaad waa maxay meesha la jibiyay waa xagee waa meeshan waa area-dan si qurux badan baa arki karnaa area-dan waa area adag ee la jibiyay kadib area-dan waa in lagu soo laabtaa kadibna waxa weeye rejection ka heshaa ama candle confirmation ka heshaa hadda candle-kan oo kale waa candle qurux badan halkaas waxa weeye ka qaadanaysaa chance-ka labaad maxaa yeelay haddii hadda matalan kale aad dhahaysid waxaan sugayaa large flag baan sugaya waxa laga yaabaa in aad maanta dhan way sugaysid waqti ka qaadanaysa laakiin waxa u jeedaa area adag ee la jabiyay waa u jeedaa kadib
markii saa loogu soo laabto chance-kaaga labaad baa haddana halkaa ka gelaysaa chance-kaaga labaad baa halkaa ka qaadanaysaa si qurux badan baa uga qaadanaysaa kadib waxa weeye ilaa intaas ka faa'iidaysanaysaa ilaa last high-gaas oo kale ka faa'iidaysanaysaa waa 157 bib si qurux badan bay TB ugu dhacayaa kadib intaa markaa heshay haddana suuqu waxa weeye reversal buu sameeyey suuqii wuxuu sameeyey reversal buu sameeyey oo reversal inuu sameeyey maxaa ku arki karnaa meeshan wuxuu ka sameeyey meeshan suuqu wuxuu ka sameeyey trend line buu jabiyey trend line qurux badan buu jabiyey adiga suuq waa soo analyze garaysanaysaa isma dhibaysid suuq waa soo analyze garanaysaa waxa dhahaysaa halkaa waxay ahayd double top bay ahayd double topkii waxa weeye waa suuq wuxuu sameeyey reversal pattern buu sameeyey sidoo kale double top kale ku yimid meeshii anu markaan oo kale waxaan sugaa haddii halkaa entry qurux badan aan ka helo double top oo kale haddii entry aan ka helo oo aan fiiriyo double topka sidii lagu yimid haddii qaab corrective lagu yimid waxa weeye chance ma ka raadsadaa haddii kalena marka la soo jibiyaan waxa weeye aan ka galaa marka meeshaan oo kale waxaan rabaa inaan waxa weeye entry aan ka raadsado entry say uga raadsanaysaa meeshaan waxaa samaynaysaa pattern separation baa samaynaysaa halkaana waxaa keensanaysaa waxa weeye trend line-kaaga kadib meeshaas waxa weeye si gooni ah adoo analyze garanaysaa maxaa uga jeedaa halkan waxaa uga jeedaa trend line kale inuu jabay baan u jeedaa marka halkaas oo kale marka saas kala dhacdo waxaan sugaa maadaama waxaan weli aan shaki aan ka qabo suuqan inuu buy aado oo kale double topka mararka qaarkood material grainist oo waxaa sugaysaa in meel area adag lagu soo jabiyo anigu marka entry-ga koowaad badanaa waxa weeye tastigan ka qaataa sometimes haddii entry qurux badan oo 1 iyo 2 iyo 3 aan helo waxa weeye waa qaataa ujeedaan meeshaan baa si qurux badan loo jabiyey kadib tasti baa lagu sameeyey saasaa loo soo jabiyey tasti baa lagu sameeyey oo muxuu suuqu sameeyey impulse uu sameeyey waa kusoo laabtay waxay ahayd support bay ahayd markii saddexaad baa la soo jabiyey markii la soo jabiyey waa lagu laabtay oo laga soo daatay entry-ga koowaad mar walba waxa weeye halkaasuu noqonayaa halkaa markuu noqdo entry-ga koowaad ilaa lowgaasaa ka cuntay ilaa lowga markaa ka cuntay trend line-kaagii baa soo qaadatay haddana waxaa aragtay trend line-kii lagu jabiyey intaasoo kale ka cuntay lowgaasoo kale waxaa ka cuntay 57 bib baa ka cuntay haddana waxaa tiri waxaan sugayaa chance kale aan raadsanayaa waa tiri chance labaad si u raadsanaysaa chance labaad sidoo kale waa in lagu jabiyaa area adag oo area adag waa maxay areadan kale halkan kale lagu jabiyo oo jeedaan si qurux badan baa waxa weeye areadan haddii 1 hour ka aad tagtid si fiican baa u arkaysaa waa maxay waxay ahayd area adag bay ahayd area adag sababtu waa maxay sababtu waxa weeye suuqu meeshan waxay ahayd support bay ahayd ku noqonay markii afraad baa la soo jabiyey waa lagu laabtay waa laga soo daatay kor baa loo jabiyey waa lagu laabtay saasay ahayd kadib markii dambe maxaa dhacday waa la soo jabiyey si qurux badan baa loo soo jabiyey waa lagu laabtay entry-ga labaad baa ka raadsanaysaa TB-ga oo kale xagee ka dhiganaysaa TB-ga waxaa ka dhiganaysaa impulse-ga hore oo kale soo cabiranaysaa impulse-ga guud baa soo cabiranaysaa kadib waxa weeye ilaa halkaas waxa weeye ka cunaysaa ilaa chance-ka marka entry labaad ka cuntid oo waxa weeye ilaa halka ka soo qaadatid si qurux badan bay waxa weeye TB-ga ugu dhacaysaa badanaana waxa weeye anigu labada entry ugu horeeya anigu suuq waa ka cunaa lowgaas oo kale ka faa'iidaysatay haddana chance-ka saddexaad waxaan ku yiri chance-ka saddexaad waa suuq wuxuu sameeyaa waxa weeye suuq wuxuu sameeyaa badanaa tasti dheer buu sameeyaa chance-ka saddexaad waa la sugaa chance-ka saddexaad waxa laga yaabaa inaad meelahan oo kale ku khasabtid dadku waa arkay large flag oo kale meelaha ka raadsanaya large flag meelaha ka laakiin suuq wuxuu kugu sameynayaa caadi wuxuu kugu sameynayaa waxa weeye noqosho caadi ah waa maxay meeshii laftigeeda lagu laabanaya haddana isla meeshii laftigeeda marka lagu laabanayo oo waxa weeye impulse qaab mataqaanaa lagu yimid suuq uu si xoog u yimid oo kale ama meel waxa weeye area adoo laga soo daatay cabaar loo soo socday oo kale hadda suuqan cabaar baa loo soo socday maxaan sameeyaa tabtii aan reversal pattern-kii markii usoo qaadanayo kale ama meelahan oo kale aan ka soo qaadanayay waan kusoo qaataa maxaan sameeyaa meeshaan waxaan ka fiirsadaa trend line oo kale 1 iyo 2 iyo 3 oo kale ka fiirsadaa haddii aan ka waayo waxaan sugaa inta waxa weeye suuqa la jibinayo waxa weeye meel adag oo waa maxay meeshaan oo kale waa ujeedaan waa meel adag waxa weeye oo suuqa kusoo laabtay marka mid baan rabaa inaan inii sheego haddii 1 hour kale hadda meeshaan oo kale entry waa ka helaysaa 1 hour kale entry meeshaan waxa meel lagu laabtay meeshiina waxa weeye qaab meeshiina waa la yimid oo lagu soo laabtay halka entry-ga waa noqon kartaa ama waxay noqon kartaa markii lagu jibiyo lower low waxa ka wada lower high markii lagu jibiyo kale
oo halkan lower high bay ahayd waa meeshan lagu laabtay markii saa loo jibiyo haddii waxa weeye 4 hour ka qaadanaysa 4 hour ka halka markii candle-ka halkaas u tagay ma qaadan kadib waxa kugu badanaya garanaysaa waxa kugu badanaya SL-ka marka maxaa loo baahan yahay saa markii loo jibiyo test heshid halkan ka qaadatid ilaa waxa weeye loogaasna waa ka cunaysaa chance-ka marka waxaan tusayaa buy-ga haddana waxa dhacay chance buy suuqu waa soo analyze garaystay suuqu waxa tiri halkan wuxuu ka sameeyay waa double bottom weeye double bottom markuu suuqu sameeyay double bottom-kii qaab noocyo lagu yimid double bottom-kii waxa lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 halka waa ka qaadan karnaa oo waxa weeye 1 iyo 2 iyo 3 ga waa ka qaadan karnaa maxaa samayn karnaa maxaa sidoo kale samayn karnaa waxa sameynaysaa in lagu jabiyo meel adag hadda ninka halka ka qaadanayo kale de chance qurux badan weey oo buy ugu qaadan karo laakiin qofkii matalan oo kale asagu reduced ka badan ka qaatay riskiga aan jeclayn iyo u jeedaan area-da markii saa lagu jabiyo area-da adag saa markii lagu jabiyo bilaa ku dhashay fiirir tastu waxa yaraha ugu muhiimsan buu ka mid yahay flag ba ma sugaysid maxaa flag buu sugaysaa meel markii lagu jabiyo tastu lagu sameeyay gal saasa loo jabiyay tastu lagu sameeyay si qurux badan baa waxa weey 1 hour ka dalka oo gal lahayd chance-ka koowaad badan maxaa sameeyaa chance-ka koowaad waxaan sameeyaa waxaan ka dhigtaa 100 biibo kale ama 50 biibo kale lacagta ku xiranta markaan oo kale ka qaatay saa markii waxa weey lagu jabiyay SL-kaaga kale meelahaas dhigatay kadib waxa weey ilaa haygaas account ilaa hayga markaa ka cuntay kadib ilaa hayga markaa ka cuntay kadib waxa tir chance la raadsanaya 38 biibo ka cuntay chance labada raadsanaysa waa maxay waa in meel la jabiyo lagu soo laabto dib lagu soo laabto oo suuqan hadda muxuu sameeyay suuqan hadda waa ka baqday halkaan oo kale hadii aad analyze garaysid waxa dhilaay meeshan kale waxa ka dhacay asnin ma ka dhacay xogaa meeshan waxa weey waa meel area dhowr toba weeye marka ka tan kale waa ka baqaya tan kale yes ma qaateen tan kale ma qaateen laakiin waxa loo baahan yahay tan kale macnaha buy uma qaateen laakiin waxa loo baahan yahay suuq waxa weey wuxuu buy inuu ku tuso waa maxay halkaan la yimid double bottom waxa noqotay double bottom kaas la yimid buy baa saa lagu aaday saasa waxa weey suuq wuxuu ku aaday buy marka adiga intriga waxa geeyay waxay galaysaa intriga waxa weey wax kala ma aha intriga waxa weey waa in meel adag tas lagu sameeyaa waa maxay dib baa loo jabiyay meeshii flaggii waxa weey dib loo jabiyay halkan waxa ka dhacay flag baa ka dhacay flaggii flag baa meesha ka dhacay balance baa dhacay balance markuu dhacay kadib waxa weey flag baa meesha ka dhacay marka flag adigu soo ku qaadanaysaa flag ma waa ka shaqsantaa in saan inta la dhoo xaga lagu tagaa ka shaqsanta laakiin maxaa ku qaadanaysaa flag waa in lagu jabiyaa meel adag oo area-dan kala hadda waa la jabiyaa lagu soo laabtay halkaas waxa weey intriga uu noqon lahaa sidoo kale waxa lagu soo laabtay area adag area adkeed lagu soo laabtay area adkeed waxa lagu soo laabtay qaab waxa weey flag laakiin baqdin baa meeshan wali ka qabtaa oo kale waxa laga yaabaa inaad tiraahdo meeshan oo kale waxa weey tas lagu sameeynaya laakiin meeshan suuq inta la jibinayo kor loo jibinayo oo arta waa la jibiyay waa lagu soo daatay haddana si sharaf loogu cunahay marka reversal patterns insha Allah continuation patterns iyo sidoo kale continuation patterns sida loo trade gareeyo iyo sidoo kale baatanada suuq ugu fiican ee lagu trade gareeyo insha Allah iyadana waxa weey waa in la soo wadaagayaa hadda kan oo kale double top kaas oo kala fiir waa suuq aan la isgaraysanaysaa waxa tiri waa meeshan waa double top ka maxaa lagu yimid qaab structural lagu yimid baa dhahaysaa 1 iyo 2 iyo 3 baa lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 adoo soo analyze garaystay haddana waxaan ku sheegayaa intrigu inuu kala fiican yahay intriga waxa weeye badanaa intriga anigu aan u jeclahay waxa kamid ah intriyada waxa weeye suuq ma taqaanaa tan kale hadda 1 iyo 2 iyo 3 gaan sameeyo kale caadi waxaan soo qaadanayaa risk intriga soo qaadanaya laakiin qofkii macnaha waxa sheegay risk intriga aan jeclayn oo kale waxa weeye reducerku ka qaadan karaa sidoo kale lacag waxa jira hadda reducerka ana ka qaadatin ma risk ka qaadan karin lacag qaab aggressive meel ku imaanaya ada qaadan karin baa jira marka badanaa anigu saan u trade gareeyo waa san inta trade kaas oo kale anigu waxaan ka soo galaa hadii canal confirmation aan helo ama meeshan oo kale aan ka helo hadda sida halkaan oo kale hadii aan ascending kaas oo kale ka helo ascending kaas oo kale hadaan ka helo maadaama suuqan buy ahaa laakiin aggressive uu ahaa waxaan ka baqayaa suuq inuu garanaysaa uu igu sameeyo flag caadi igu sameeyo intuu halkan ku soo laabto saan oo kale igu sameeyo markaan oo kale waxaan sameeyaa risk entry wax soo qaataa risk entry
tan kale waxa weeye three touch kaas kala bilaad canal confirmation ka soo qaata intaas oo kale hadaa ka cuntid waxa sameynaysaa haddana waxa sugaysaa tasiga koowaad baa sugaysaa tasiga koowaad meey halkaan oo kale markii tas lagu sameeyo waa ujeedaan eriyada adag markii tas lagu sameeyo waa ka soo qaadanaysaa ilaa intaas ka cunaysaa 52 bib way ka badan tahay waa euro USD maalintii 52 bib kushiisana waa lacag badan kadib haddana waxa weeye inta marka heshid chance ka labaad intriga labaad waxay keenaysaa intriga labaad waxa ku helaysaa lacagta xageer tas ku sameysay tas waxay ku sameysay bidix mar walba fiiri mar walba bidix fiiri bidix maxaa ka fiirinaysaa suuq meeshii ay ku laabatay baa ka fiirinaysaa oo laabashadii ay ka sameysay ku laabashadii ay ka sameysay oo ah waatan areadan waa area waxay ahayd resistance oo la jabiyay taa ujeedaan waa lagu soo laabtay si qurux badan baa lagu soo laabtay waxa weeye waa laga soo daatay laakiin waxa inii sheegaya hadda waxa weeye tan oo kale anigu halkaa kama qaateen sababtu waxa weeye meel markii ratas lagu sameynayo oo loo soo socdo haddii aragtid laatan reversal hadda sida hidden shoulder kan oo kale dee waxaas leedahay double top kaas lagu laabanaya laakiin maxaa loo baahan yahay halka markaas oo kale waxa la sameeyaa suuq ilaa inta suuq waxa weeye momentum sell up ku tusayo waa maxay meeshii waa ka dib baa loo soo jabiyay saasaa loo soo dhaaqay sellal kana la sell soo dhaaqay kadib waxa samaystaa suuq inta lagu laabanayo areadan la soo jabiyay u jeedaan si qurux badan baa lagu laabtay si qurux badan baa lagu laabtay waa laga soo daatay intaas ka qaadatay 28 dabbi haddana 28 dabbi marka ka qaadatay inta waxa weeye waa labada entry ugu horeeya entryga saddexaad say ku qaadanaysaa entryga saddexaad suuq ilaa uu ka sameeyo momentum caadi ah waxa weeye ama large flag uu ka sameeyo large flag waa maxay suuq muxuu ku laabanayaa suuq wuxuu ku laabanayaa meel adag area adag buu ku laabanayaa waa maxay meeshaan oo kale area soo jabiyo oo kale ku laabanayaa meeda baat halkaan oo kale waxay ahayd meel adag bay ahayd sababtu waxa weeye suuqu halkaan waxay ka ahayd resistance bay ka ahayd kadib waa la jabiyay waxay noqotay support dib baa loo soo jabiyay waa lagu laabtay kor baa xoogaa looga baxay waa lagu soo laabtay waa laga soo daatay mar labaad baa lagu soo laabtay qaab noocyo lagu soo laabtay qaab waxa lagu soo laabtay flag laakiin tan oo kale halkaa kama galeen riskiga kama qaateen maxaa yeelay waxaan ka baqayaa in xaggaa laygu tago kore laakiin already meesha waa la hidgareeyay already laakiin halkaas oo kale ka baqaya marka in laygu tago sida caadiga aanu markaan trade garanayo kale halkaasaan ka baqi lahaa in dirow dhoonka 20kooda bib la siiyo maxaa marka sugi lahaa flagga waxaan saaranayaa trend line aan saaranayaa kadib flagga markii la iisoo jabiyo waa waxaan sugayaa tasiga koowaad meey ka si qurux badan baa waxa weeye lagu soo laabtay area la jabiyay waa lagu soo laabtay aan laga soo daatay marka reversal pattern iska badanaa reversal ka saas aan trade garaya reversal aan pattern ahaado ama reversal caadi ah ahaado badanaa anigu waxaan sameeyaa qaabkaas aan trade garaya intriga afraad oo kale hadda waa ka raadsan kadib waa maxay suuq markuu waxa weeye uu sell waali u aaday halkaan oo kale sell aan caadi ahayn u aaday waxa la jabiyay neckline baa la jabiyay hidden shoulder baa la jabiyay hidden shoulder ka markii la jabiyay kadib waa lagu soo laabtay si qurux badan baa lagu soo laabtay kadib halkaas waxa weeye intriga noqon lahayd ama maxaa samayn lahayd maadaama qaab aggressive baa lagu yimid wana warku kala dadka si fiican baa u sii arkaysaa halkaan maxaa ka dhacday imbalse baa ka dhacay sell meeshaan kale areadan kale la jabiyay waa lagu soo laabtay kadib si qurux badan baa lagu soo daatay marka reversalka anigu badanaa waxa weeye qaabkaas aan trade gareeyaa oo haddii aan reversal aan trade gareynayo haddii si qurux badan hadda kan oo kale haddii si qurux badan aan u arko waxa weeye aan dee lacagtaas aan hubin oo kale waxaan sugaa inta meel la ii jibinayo oo kale tasing ka qaataa haddii kale risk entry haddii lacagta qurux badan tahay risk entry waan ka qaataa hadda meeshaan oo kale fiiri waxay ahayd waxa weeye waxaa la jibiyey pattern triangle baa la jibiyey triangle-ka marka la jibiyey saasaan ku qaadan lahaa triangle-ka kaliya iskama qaateen waxaan sugayaa sidoo kale zone in la ii jibiyo oo fiiri halkan suuq qurux badan baa lagu jibiyey intriga koowaad halkaas noqon lahaa sababta waxa weeye suuq halkan uu ku laabtay kadib waxa weeye suuq waa jibiyey markuu jibiyey waa lagu soo laabtay halkaasaan ka qaadan lahay intriga labaad waa xagee intriga labaad suuq waxa weeye halkan intriga labaad kama siin intriga labaad suuq maadaama si awood uu ku dhaaqay intriga labaad kama siin intriga koowaad hadda ka cuntay alxamdulillah ama oo kale haddii 1 hour ko kale aad tagtid waxa weeye intriga labaad waa ka helaysaa oo kale meeshaan maxaa yeelay halkan waa la jibiyey meel adag baa la jibiyey kadib suuq waxa weeye waa ku soo laabtay hadaa si fiican 4 hour ka xataa waa ujeedaa waa la jibiyey
lagu soo laabtay suuq oo dhan waa zone kan waxa weeye wax ka muhiimsan male guys waxa weeye reversalka waa fahanteen baan filaya saa u qaato waxa weeye haddii hadda matalan last oo kale tii u dambeeyey ma garanaysaa lacagta u dambeysay hadda USD kan oo aan falanqeynaya caawa falanqeynta waa soo daawan kadhaa soo geliyay see matalan oo kale hadda lacagtan oo kale waxaa ujeedaa na waxa weeye structure buy ka sugeyn maxaa iri qaabka hadda anu aan ka sugayay waxa weeye qaabka aan ka sugayay waxa weeye in suuqu meesha flag igu tusoo kale flag iga siiyo kadib waxa weeye aan buy qurux badan u qaato ama in meesha area inta la ii jabiyo tastiga aan helo kadib waxa weeye buy aan saa ugu qaato laakiin waxaa dhici karta suuqa hadda meesha uu marayo macnaha waxa weeye waa baqdin de waxa laga yaabaa in suuqu asalkaaga dhaco intuu meeshan waxa weeye buy ay u qaadatay inuu dee double bottomka kugu soo sameeyo laakiin maxaa kaaga qurux badan waxa kaaga qurux badan area meesha adag marka la jabiyo oo lagu soo laabto ina waxa weeye ka qaadatay marka ama impulsiga hadda socdo oo kale wuxuu sameeyaa moogta lower low iyo lower high wuxuu sameeyaa markii saa loo jabiyo saa loogu soo laabto aartay meesha in flag la jabiyay sidoo kale waxa la fiirsadaa in meel adag la jabiyo kala la fiirsadaa meel adag la jabiyo la fiirsadaa kadib waxa weeye tasigaas laga qaataa si qurux badan looga qaataa waxa weeye bay looga qaataa guys aad baan idin salaamayaa video waan ku dheereeyay oo filaya insha Allah reversalka waa fahanteen qaabka loo qaato tastiga ayadoo intaan back testing wadato oo intaan ka sii muhiimsan insha Allah waa soo gelin doonaa waxaan ku xijinayaa insha Allah sida continuationka waxa weeye loo trade gareeyo iyo qaabka waxa weeye loo trade gareeyo continuationka weeye dadka trade gareynaya qaabka loo trade gareeyo sidoo kale insha Allah waxaan isku dayi doonaa in aan soo geliyo qaabka ma garanaysaa loo trade gareeyo baatanada oo kale markii baatan lagu jabiyo oo kale meelaha waxa weeye laga soo suuqay in laga trade gareeyo sidoo kale insha Allah waxaan soo gelin doonaa ayagoo wada back testingkeedii wata sida loo trade gareeyo ascendingka descendingka failing wedgeka rising wedgeka meelaha TB-ga la dhigto insha Allah waxaas oo dhan soo gelin doonaa insha Allah channelka subscribe saaro kambalkana furo insha Allah tricks badan insha Allah waa soo wadaa iyo qaabka waxa weeye suuqa internet ugu quruxda badan waxa weeye looga raadsado guys aad baan idin salaamayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh